السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد. والله ليال waxaa ilaahay mahadii ah in mawduucii iyo maalinkii iyo muxaadaradii aynu qorsheynaynay ay inoogu dhacday ilaahay fadligii sidii aynu doonaynay. fadhiga aad fadhidaan meelaha fogey aad ka timaadeen, waqtiga hore aad soo kalahdeen fadhigiinaan inagoo soo daahnay, intoo dhan ilaahay waxaan idinkaga baryayaa sabirka aad noo sabirteen in maalinka qiyaame inamaa yuwafa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab, ilaahay idinkugu gudo bigayri xisaab, jannadiina idin geeyo. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, dhibka Allah ka qaado, xanuunka Allah ka qaado, culayska Allah ka qaado, albaabada khayrka Allah u furo. ilaahay waxaan ka bariyay inta xanuunsan Allah caafiyo, inta maqan Allah soo ururiyo, inta kala tagtay Allah isu soo celiyo. ilaahay waxaan ka bariyay adduunka waa laba bari, waa laga tagayaa, ilaahay nagama tagsiyo ilaa isagoo raali naga ah maahane. haddaynu ka tagna rasuulka maciisa jannatul firdaws Allah isugu kaageeyo. walaalayaal, kunuu cibaadallahi ikhwaana, ahaada addooma alle oo walaala ah, waa mawduuceena runtii aan rabo maanta daqiiqadaha horteena ah in aan dul istaago. ilaahay waqtiga ha inoo barakeeyo, carabkaygana ha ku sugo sida wanaagsan, igana yeelo kii hadalka u dhiga sida uu ku habboon yahay, inaga oo dhan oo nafsadeeda ugu horeysana ilaahay ha inoogu anfaco, kuwii ku dhaqmana Allah inaga yeelo. walaalayaal, idaylkeen waxaynu nahay daa'iman waa ku celceliyaa ee hal reer ayaynu nahay. reerkaana annaga ama awowyadeena nooma ayan samaynin, bal allihii ina abuuray ayaa hal reer inaga yeelay, one family oo la yiraahdo walaalo. waxaana qabiilkaas ku mudanay oo ilaahay uu noogu yeelay waxa weeyaan waa iimaanka uu noo dooray. iimaankana ilaahay baa noo dooray. ilmaha aadam oo dhan markii loo soo diray rususha risaalada loogu soo dhiibay way kala baxeen, qaarna way diideen, qaarna way qaateen. intii qaadatay iimaanka ee risaaladan ogolaatay ayaa ilaahay uurkooda wuxuu geliyay iimaankan macaanka badan ee qurxoon. markaasaa ilaahay wuxuu yidhi intiinaan risaalada qaadatay ee iimaankan la yimid waxaad tihiin one family oo aan jeclahay. family walba ka fiican waa hal qabiil, waxaa laydin yidhaahdaa walaalo. wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay inama almu'minuuna ikhwatun, dadka mu'miniinta ah ee iimaanka qaatay ee risaaladan ogolaaday, i aaminay, hoggaanka ii dhibtay, intiinan waa in aan doortay, waana walaalaa tihiin, waxaad ku walaalowdeen waa iimaanka. dadkii kale iyo annaga marka annagaa ka sarreynaa. annaga waxaan noqonay laandheere ayaanu noqonay, waxaanu ku noqonay waa iimaanka ilaahay, iimaankaasuu marka nagu kor yeelay. soo reerkan walaal la yiraahdo ama walaalo wuxuu ka sarreeyaa reeraha kale. waa ka uu dhahaya alle yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum, ilaahay wuxuu sare u qaaday oo uu kor yeelayaa waa ilaahay qiyaami saaca. ogow, cid walboo kusoo biirta reerkan oo u nasab sheegata, ku faanta qabiilkan la yiraahdo walaalo, ilaahay wuxuu kor yeelayaa dadka idinka midka ah ilmaha aadam inta iimaanka qaadatay qabiilkan soo raacday. soo qabiilkan waa qabiil aad u wanaagsan. marka haddii lama rabo marka dadka one family ah ee reerkan ku dhex jira inay isqoomaan, inay jalaafo isu dhigaan, inay maaragtay isxasdaan, inay isdulmiyaan, inay isxaqiraan, lama ogola. marba haddii reerka aad ku soo biirtid waa ixtiraam, waa family la rabo inay ku noolaadaan adduunkan ixtiraam iyo isqadarin iyo iswalaaleyn, isu tanaasulaad, isu sabrid, in laysu turo, in la iscaawiyo, in la iskaabo, in la midoobo, in wax xumaanta la iska reebo, wanaagga la isfaro, in laysu naxariisto, ragga iyo dumarkaba. reerkan marka xataa ilaahay wuxuu gaaray guurka, xataa wuxuu yiri reerkan keligii ayaa isguursanaya. raggooda iyo labkooda iyagaa weli isu ah, iyagaa isxiriirinaya, iyagaa isguursanaya. cid kale maya, cid kale ma guursanayaan. maxaa wacay ciddan waa cid laandheera ah,
وعد لا دير وعد قب عدان قبت أنا قنت مقرسنيسو قن إيو لانقاب واتقرنيسان صوماها وانت كهرتي قال لماذا كهرتي ويان إيه الإيمان كقادنين ما هسلان أنك قلنا قانا إن ولا لها قاركود إيسوت المامان يقول آبيالكود فيرينايا إن إسدهان أنك والله ديراء كي كلان أو حقيرايا مذموم ويتاسلم أقرأ اسم حقيران وحوليه يا رسول كان صلوات الله وسلامه عليه المسلم أخو المسلم مسلم كوا ولالك مسلم ككالي وولالو كوناك بدن كان قيمي بدن كان ديجا إيو نصبك إيمانك عيار معها بحاول عاي كان ديجا نصبك أدونك وكوكالي تيجي كرتان كان أبها دلي أدونك كوكالي تيجي كرتان هدي أوقاتو الدين كالي إمسا قادتي دين كالي وحتى أن إسلح لينين لكن كان إيمانك ولا لي الدون إسكتنا في آخر حتى كالي تيجي مايان يا وأصل ووحص عناية وقبيل آد أبركيسا marka qabiilkaasa ka wanaagsan reerkaasa ka wanaagsan reeraha kale marka in la xoojiyo almuslimu akhu almuslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu bihasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu almuslim ma dhulmiyo walaalku muslimku wa walaalka muslimka kale مسلمين إذنكو ولالاتين انتينا إسأكفر لذا رجينا يدمركينا ولالاتين بل قبلهنا إسأكفر لذا ولالاتين ولالكنا مظلميو ولالكي كالي مظلميو أفككو مظلميو إشكو مظلميو سنككو مظلميو يونو سنك حتى ولا سكو ظلميا صومها يا سنكي إيتاك تالو قوليها سنكي دكسيني ودقا جنيسا dhegta kuma dulmiyo wax kuma qaado ya ma dulmiyo ma xaqiro qof waxa dambi ugu filan dambi waxa ugu filan oo uu cadaab ku mudanaya in uu walaalkii muslimka ah uu xaqiro in yar allah ka dhigay cidigiisa inuu xaqiro layna ma ogol marka waxa yiri innamal mu'minuna ikhwa mu'minintu wa walaalo إبليس بجرا أو أن أقولين ولا أن أقولين مركا وكلها يا حبيب صلاة الله والسلام عليه يكونوا عباد الله إخوانا أو عنوان كينا نقض الضوماء اللي أو ولا لا هجيني دمر كينا وحماش كجرا هنقوننا الضوم إبليس أو عل يا تلابو الله قاضي يا كسر جيدا إبليس كان تلابو قاضي يا marka raacin baa lagu yiri wadadiisa adooma Allah walaala noqda hadii marka ibliisku uu nasqi in yar haduu wax idin ku taabto oo uu dhexdiina geliyo xumaan in yar markiiba maxaa la rabaa oo labada qalbi ay isu xumaadaan markiiba waxa la doonayaa inta qalbiga san ee walaalaha kale ayaa loo digayaa fa aslihu bayna akhawaykum degdega markiiba mu'miniintu waa walaale hagaajiya oo islaaxiya oo dhexdooda maslaxad dhiga ya si wanaagsan inta qalbiga wanaagsan markiiba hala walaaleeyo walaalaha halo tago hala islaaxiyo dhexdooda al-islah bayna an-nas ilaahina ka baqa labadii baa loo digayaa labadii is cuntay labadii is xamatay labadii is qanjaruufatay labadii wax kala gaareen xurgufta ilaahay ka baqa leeyahay walaalatihiine إلهي كبقى كوي كلنا وحلله ونكسنا قلبي ونكسنا إذن كنا هكذا هنا مركب وأتجا ولا الله إصلاحية دحضه إلهي كبقى إلهي وجبقى إن كذا هذان إن إذن إصلاحية إلهي وجبقى أرض يا مركبة وحال روى الله بدر الروح إن لا ترتره يا واحد نحجلي قلبي جود إن لسنا ذي فيه محايا يا غير كان إلهي يا رسول كيس إسلامك وحيدونيا إن هل قلبي أي هذان هول كان أنفر إنما أنت هل قلبي إنهم كجوجنا لو باهنيا وإسلام مسلم كربت أساسه إيمان كان يسدا وحلاوة الإيمان أول شيء إنك هل قلبي إنهم كجوجنا أيال الدنيا دق على ليه إلهي نكبقى إلهي كبقى محيي لي إيك مركا دتكو أي ولا على النقضان أو هل قلبي على النقضاء
xurguf markay timaado inta loo ordo la islaaxiyo maxaa ka dhalanaya waa cabsi cabsidaasna wallahi qofku ilaahay uurkiisa geliyo oo ilaahay sidaa uga baqo warkiisa qaata wallahi caaqibada wanaagsan ninkaas iska leh allah ilaahay baa dhahaya wal caaqibatu littaqwa ciribta wanaagsan adduun iyo aakhiro waxaa iska leh cabsida qofka zaad isahay ka dhigta aayad kalen uu ku leeyahay wal caaqibatu lilmuttaqiin dadka ilaahay ka baqay oo ilaaliyey walaalnimada ilaaliyey marka xurguf ibliisku ku keenana markiiba dadka qalbiga wanaagsan intay u ordeen islaaxiyey dadka iyaga ah ciribta wanaagsan kuwaasa iska leh allahu akbar ya marka cabsida shay aad iyo aad u wanaagsan weeyaan wattaqu llaha maxaa markaa kadib imanaya adigoo cabsi helay zaad ka dhigtay weliba noqday kan ummadda qabiilka ninka ugu qiimiga badan cabsida ciyaar maaha markii la weydiiyey xabiibku salawaatu llahi wasalaamu calayhi man akramu nnaasi dadka yaa u karaamo badan u wanaag badan muxuu yihi atqaahum ka uga cabsida badan ilahayna muxuu yihi ina akramakum cinda allahi atqaakum atqaahum ina akramakum cinda allahi atqaakum kan idinkugu cabsi kan idinkugu wanaaga badan ilaahay agtii jannat lfirdows rasuulka la gelay salawaatu llahi wasalaamu calayhi waa kiina uga cabsida badan aad markaad cabsidaa heshid oo aad ku heshid walaaltinimadii iyo in yar xurguf haddii walaalaha kala gaaraan in ay kuwa kalena u degdegaan waxaa kaloo ilaahay uu siinayaa lacalakum turxamuun inuu ilaahay idin naxariisto raxmad baa jirta haddana imanaysa raxmaddana waa midda jannada lagu gala qofna camalkiisa ku geli maayo jannada camalkan janno idin geen maayo laakiin maxaad ku helaysaan markay jannada waa qaali salaadan aan forforsanayno un soonkan zakadan waxaan angegan ee aan khushuuca lahayn xataa hadday khushuuc yeelata yaa ka khushuuc badnaa xabiibkeena yaa ka cabsi badnaa xabiibkeena yaa ilaahay uga dhawaa xabiibkeena markii la weydiiyey adiga camalkan ku geli maysid miyaa jannada mayuu yiri camalkan janno igeyn maayo ilaa inuu ilaahay naxariistiisa ugu dada maahane camalkan marka waa maxay faa'iidadiisa wuxuu kuu geynayaa naxariista ilaahay naxariistiisa qaali weeyaan raxmadiisa taasaa jannada lagu tegi karaa marka raxmadiisa qaali weeyaan ilaahay ya marka camalkaa naxariis ilaahay buu noo dhaweynayaa waxaa lagu yihi haddii dadku walaalaha ah dadku waa walaalo mu'miniintu waa walaalo dadka islaaxiya ayaa la yihi dhexdiina walaaltinimada ilaaliya sulaxa ilaaliya cabsi baad helaysaan kadibna ilaahay wuu idin naxariisanayaa naxariistaas walaalayaal waa midda ummadda isu keenta aan dul istaaga in yar waa midda ummadda isu keenta ummadda qalbigooda wanaajisa jilcisa ballaarisa waasaca ka dhigta allah rasuulka miyaan la oran sala allahu calayhi wasalam ku salli xabiibkaage fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين نحرس إلهي أوركاغا يلي إلهي كل جينا نحرس تيس أوركينا يلو نحرس إلهي أوركاغا يلي أو أوركاغا كبوحيي آيات جليع كن نقطين حدي أن لقلين لهن إيك أو أهان لهيد fadan haddaad ahaan lahayd dabeecad xume nin dabeecad xun yaa oo angegan khaliida alqalbi oo qalbigiisu dhagax yahay qalbi dhagax haddaad ahaan lahayd ya oo aad maaragtayy angegnaan lahayd nin uur xun qayli badan caay badan maaragta uur mariid ah af xun ya dabeecad laawe ah haddaad ahaan lahayd lanfaduu min xawlik way kaa kala tegi lahaayeen dadka way kaa kala tegi lahayn laakiin maanta waxaa lagaaga kala tegin waa maxay waxaa lagugu soo ururaya hareeraha lagaaga fadhiyo waa maxay dadku ku jecel yihiin xashaan qalbigaagaa jilcan maxaa jilciyey naxariista ilaahay ku wadeeca yeelay naxariistaas waa naxariis uu geliyey ilaahay mu'miniinta wuu geliyey
sifooyinka mu'miniinta ay kamid tahay naxariistaas waynu leenahay ha markaa kadib baa waxaa la yidhi facfu canhum ha mu'miniinta sida laga rabana waa sidan facfu canhum cafi baa la yidhi dadka walaalaa tihiin idinka oo dhan waxa la amraya waa aabihiina ogow waa xabiibkiini waa rasuulkiini ayaa la leeyahay ilmahaaga cafi ha ummadaada cafi mu'miniinta cafi ha cafi oo dembigoodana ilaahay u bari inuu ilaahay dhaafo u dembi dhaaf weydiiye waa sida laynaga doonayo haddii gabadhu walaasheed muslimada kale ah ay u gafto ha cafiso facfu can cafi cafiska ilaah ku ekaynin waa walaalka iimaanka ah ka qiimi badan yani walaalka kale ee dhiigge ilaahayna bari ha u bari ilaahay markaad cafisid ilaahu walaasheed soo hanuuni ilaahu qalbigeeda wanaaji burcad mari ilaahu walaal fiican naga yaal ilaahu dembigeeda dembiga waalidiinta cafi markaa kadib maxaa imaanaya marka inta lais cafiyo ilaahay laisu weydiiyo dembi dhaaf waxaa imanaya dadkii halka family ahaa ee walaalaha ahaa iimaanka ku walaaloobay in ay noqdaan qalbi qof keliya markaa kadib rasuulka maxaa la dhahayaa washaawirhum fi lamr washaawirhum la tasho seen wax yeelaa mustaqbalka seen wax u sheegnaa seen wax u gaarsiinaa u jihaadnaa dawlad u dhisnaa la tasho markaa kadib eeg waktiga la leeyahay la tasho waa marka laiscafiyo oo walaalo la noqdo oo maaragtay laysu dembi dhaaf weydiiya qalbiga laysu xaara waa laysoo firiisan karaa soo maha waa la isfiirin karaa talo waa la wadaagi karaa laakiin ka waran iyadoo uurka wax laysugu hayo ilaahay ma uusan dhihin sidaa abadan ma jira aayad qur-aanna laguma sheegin xadiisna laguma sheegin dad qalbiga wax isku haya in la yiraahdo reer wada dhista abadan waa mustaxiil dad qalbiga mariid isu ah qalbiyo madmadow in la yiraahdo wada tashta maxay ku wada tashanayaan ilaa tashigan kadib ilaahay baa la tala saaranaya suu ilaahay marka kugu hiilinaya suu ilaahay wax kugu qabanaya suu ilaahay ku caawinaya ilaa anaga xeeladna ma lihin quwadna ma lihin ilaa bimacuunati illah ilaahay inuuna kaalmeeyo maahane see lagu helayaa kaalmada ilaahay waxaa lagu helayaa in qalbiyada laisu xaaro walaalo la noqdo hal qalbi ah ayaa rasuulkii salawatullahi wasalaamu aleyh asxaabadiisu intaasoo boqolaal kun hal qalbiyay lahaayeen hal qalbi ah marar baa jirta dagaalada qaarkood sida uxud oo kale qaar kamida saxaabada qalbigooda wax yar adduunyo gasho halaabi waaba la ogaatay ku dhacday xataa rasuulkii baa dhaawac soo gaaray salawaatullahi wasalaamu caleyh marka waxaa la rabaa hal qalbi ah marka la yiri facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri markaa kadib faidaa cazamta haddii tala aad meel wada dhigataan go-aan gaadhaan fatawakal cala allah ilaahay tala saarta wuu idin caawinayaa ilaahay maxaa yeelay in allaha yuxibu lmutawakiliin kuwa ilaahay halka qalbi ah ee wada tashada ee haddana hal go-aan gaara ilaahay u bandhiga ilaahow anaga sidaasaan talo ku gaarnay adigana nacaawi ilaahay kuwaasuu jecel yahay warsow maaha marka yaa la leeyahay kuwa la dhahayo waa kuwi faaslixuu bayna akhawaykum faaslixuu bayna yaa la dhahayaa waa mu'miniinta iyaga dhexdooda idinkaa inama almu'minuuna ikhwa idinkaa walaalo ah ya ee dhexdiina islaaxiya aayaddaas ma waxaad ka fahmaysaan war idinkaa mu'miniin walaalo ah hal qalbi baad tihiine haddii khilaaf idin dhex yimaado kuwa kale ee gunta ah laangaabka ah mushrikiinta ah ee aan iimaanka qaadanin ee familiga aanan kamid ka ahayn ha idin yimaadaan oo ha idin islaaxiyaana ma ka fahmaysaan meesha waa maxay familigan walaalahan markay iskhilaafaanba u tegaya gaalada u tegaya ee islaaxinaya shir baa maraykan u qabtay shir baa talyaani u qabtay shir baa ingiriis u qabtay etoobiya u qabatay yaa la yiri ha islaaxiyaana waa inta qalbiga fiyow reerka dhexdiisa reerkan laandheeraha ah walaalaha ah ma waxay u baahan yihiin laangaab ma waxay u baahan yihiin cid ka hooseysa keliya waxay u baahan yihiin iyaga dhexdooda inay wada tashadaan iyada dhexdooda inay heshiiyaan ilaahayna ay tala saartaan khalaas arrinka saasuu ku xalismaaya
laakiin waddada marka la diiday, walaalnimadii horta la diiday, islaaxii la diiday, tala saarashadii la diiday, ayaa ilaahay naga yeelay meel xun nageey, soo maaha? marka walaalaynu nahay, aynu bilowno hawlkan, aynu ka bilowno. walaalku muslimadu ama muslimku waa walaalka muslimka kale weeyaan. waxaa la yihi almuslimu akhu lmuslim, ma dulmiyo walaalkii. ilaahayna waa ku xadiis alqudsiga ku lahaa, yaa cibaadii inii xaramtu الظulma calى nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu. nafsadayda dulmiga waan ka xarimay addoommadii allow, idin dulmin maayo. idinka oo addoommadaydii ah oo aan idin dulmin karo, ma laga yaabo inaan idin dulmiyo. cadaaladda anaa bilaabayu leeya alle subxaanahu watacaala. idin dulmin maayo, dhexdiinana xaaraan baan ka yeelay, ee ha isdulminina. maxaa wacay walaalatihiin? dulmiga waxaa kamid ah in walaashu ay cunto xoolaha walaalkeed, ama xoolaha walaasheed, dhexdiina xoolihiina inay cuntaan, xaq darre aad ku cuntaan. waxaa la rabaa labada qof waxaa dhex maraya bitiibi nafs, qalbigaagoo wanaagsan, adigoo faraxsan. maxaa wacay ajar baad ka helaysaa, wixii xalaal bay kuu noqonayaan. laakiin markaad walaashaa xadid, walaashaa wax ka qaadatid, oo aad meermeerisid, deen ka qaadatid, iyadoon ogeyn wax ka qaadatid, dhac iskaba daabe iyo maaragtay iyo khiyaano kale, xataa wixii xalaasha ahaa aad ka khalad weeyaan. walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaatil. dhexdiina ha ku cunina xoolaha si xaaraana ha u cunina. lama ogola, lama ogola. eeg xabiibku wuxuu leey salawaatu llahi wasalaamu calayh, faman qadaytu lahu bixaqi muslimin fainamaa hiya qitcat min annaar falya'khudha aw liyatrukha. wuxuu yihi waxaa ii imanaya salawaatu llahi wasalaamu calayhi, laba walaala ah ayaa ii imanaya. waa laba gabdhood walaala, laba wiilo walaala, wiili gabar walaala. waa iimaanka oo familigan kamid ah. anigu ma qiimeeyey qabiilka aabbayaalka awowyaalkan dhintee lagu faanayo. waxa uurkaygu ku weyn waa walaalkan iimaaniga ah. laba walaalaa ii imanaya, mid baa aftahan ah, oo laakiin dhaalim ah, oo dulminaya walaalkii. sabar loogooyinu wataa, shahaadooyinu wataa, dhul ama dhaxal ama waxbuu wataa. walaalkiibuu rabaa inuu ka qaato. wuxuu ku leeyahay dowladdaa ii goysay, waa kan sharci baan wataa, sabarloogaan wataa, dhulka anaa leh, guriga anaa leh, ganacsiga anaa leh, gaariga anaa leh, ceelkan anaa leh, beertan anaa leh. caddayn ma haysataa? waa ta caddaynta. annaga daahirkan xukunnaa soo maha. waa tana caddayntii. caddayntanna isaga ma leh, laakiin kii miskiinka ah dhulka lahaa ma hadli kara, caddaynna ma wato. maxaa yeelay dhaalimkan aftahanka ah ee wax dhacaya, walaalkii dulminaya, aabihii baa madaxweynaha ah, walaalkii baa madaxweyne ah, wasiir ah, xildhibaan ah, oo jago sare dawlad ka haya. kaasuu hoos galay, dhulkii baa loos keenay. maxaakimteenan ilaa waa taqaanaane. markiiba maxaa dhacaya? wuxuu yihi walaalaa ii imanaya, markaasay isdulminayaan. mid baa caddeyn wata, kaasaan xaqi u goynayaa. shahaado maa wadataa? ha, okay, dhulka adaa iskale, gaariga adaa le, beerta adaa le, ceelka adaa le. laakiin ogow, sidaa kuugu xalaal noqon mayso. annaga daahirka un baanu xukunay, laakiin saraa'irta ama qalbiga xaqiiqada waxa xukumaya waa alle. allaha dhahaya wanadacu lmawaasiina alqista liyawmi alqiyaama. allah maalinkaa weyn, miisaan caadil ah ayaanu dhigaynaa. marka qofkan walaalkii xaq uu walaalkii leeyahay aan u gooyo, aftahannimadiisa iyo sabarloogooyinkiisa iyo laysimadiisa darteed iyo caddaymaha uu la yimid ee beenta ah aan ugu gooyo, fa inamaa hiya qitcat min annaar. waxaan kuu gooyay gaari iyo guri iyo beer maahe, waa gabal cadaab ah. falya'khudha aw liyatrukhaa, ama ha qaato ama ha ka tago. ma qaadanaysaa? guri baad walaalkaa kula doodaysaa, wuu soo qaxay, wuu ka soo tegay, waad dulmisay. inaa u ilaali siday ahayd. walaalkaa markuu kaa tago oo la cayriyo, ibliis intuu idin dhex galo, dad qaar ay cayriyaan, guryihii cabsi laga kala tago, beerihii laga tago, baabuurtii, gawaaridii, hantidii laga taga, walaalka haray maxaa looga baahan yahay? inuu ilaaliyo, inuu difaaco, inuu u dhowro. waa ammaano, waa xaqa walaalka cararay uu kugu leeyahay. inaad u ilaalisid bay ahayd, na inaad dhacdid
haddaad qaadatid waxaad qaadatay waxaa maahe waa gabal cadaab ah. ha qofki damiir leh oo xusuusan walaaltinimadu waxay tahay ha ka tago, kaan xusuusneen oo addoon ibliis ahna waxaa la yidhi ha qaato. marka addoomo ilaahay baynu nahay ideelkeen soomaa. rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu llahi wasalaamu calayhi, unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman. war walaalka u gargaar, walaalaad tihiin, walaalku waa inuu walaalka kale u gargaara. haddii la dulmiyey iyo haddii uu wax dulminayo labaduba inaad u gargaartidaa la rabaa. saxaabadu waa yaabeen, ninka madluumka ee la dhacay waaba la gartay, xaqiisaa loo dhicinayaa, waa lala duulayaa, waa loo gargaarayaa. laakiin ninka wax dhacay see loogu gargaarayaa? isagaaba dhaalim ahe, gacantiisaa la qabanaya. joog ayaa laleeyahy, waa walaashaha dhicin, ha caayin, waa walaashahay. gabadha wax xamanaysa waa in gabadha kale ag fadhida ay dhahdaa, na ilaahay ka baq, waa walaasha, u gargaar walaasha. ha qabo, ha xamanin dheh, isha ha u qalloocinin, sanka ha u buurinin, dhegta ha u dheeraynin, daa xoolaheed gacanta ha u taagin, ha xamanin, u dambi dhaaf weydiye, cafi walaasha, daa waa inaad qabataa. maxaa wacay? waa xaqa walaasha maqan ee la xamanaya ay kugu leedahay. ha iyo qofka wax xamanaya xaqa uu kugu leeyahay inaad joojisid, aad dhahdid kaana u gargaar, tanna u gargaar. bi-adaas ka warramay, jawigaas ilahay baad ku dhaariyey, waa jawi aada u wanaagsan. sidaasaa la rabaa gacmaha in laysu qabto. familigan lama rabo cuqdad inay kala dhex gasho. marka la leeyahay ukhuwada iimaanka aan ka hadlaayo, tii hoose ee aabbayaalka ee dhowaa maxaa u malaysaa? owlay kasii tahay, meesha maba taallaba. mana aha in walaalka dhiigga iyo nasabka uu cuqdo u qaado walaalkii kale. taad uurka hooyadaa kasoo wada baxdeen xaggee joogtaa? laa ilaaha ila allah. taas waxaaba ku xiran raximnimadii iyo biri waalideynkiibaa ku xiran. ma goyn kartid walaasha, walaashaa ma goyn kartid. xataa walaashaa haddii ay tahay adduunka gaal hadday ku tahay, adduunkaad ku xiriirinaysaa. wanaagii iyo baarinimadii waa lagaa rabaa hooye ah ugu sameynaysa walaasha, laakiin aakhiraadan ku xiriirinaynin wixii ah, diin baadan ku xiriirinaynin. intaasna waa inaad hanuunkay iyo ilaahay baridii ducadii aad ku kabtaa, ilaah walaasha iisoo celi, walaalka iisoo celi. lama rabo walaalaha xumaan inay kala dhex galaan. maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu ku sifeeyey mu'miniinta caaqiliinta ah, mu'miniinta ilaahay u dhow, adduun iyo aakhiro kuwa ilaahay doortay, kuwa rasuulka ilaahay jecel. markuu rasuulka matalayay wuxuu yihi, mathalu lmu'miniina, mu'miniinta mithaalkoodu ma aha mu'miniintoo dhan. familigan halkan reer way kala sareeyaan. warafaca bacdakum fawqa bacdin darajaat, ilaahay baa dhahaya barkiin barka kaleanu ka sarraysiinay. eeg, barka kaleanu ka sarraysiinay. maxaa laysaga sarreeyaa? waa tan wax laysaga sarreeya. rasuulka inoo sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayh. ficilka iyo camalka isku caqli ma aha mu'miniinta halka reer ah, isku waxbarasho maaha, isku dadaal maaha, isku faham maaha, waa la kala sarreeyaa soo maaha. kuwa ugu sarreeya waa kuwan, waa kuwa dhahaya mathalu lmu'miniina, mu'miniinta mathalkooda, kuwa sarreeya ee ugu sarreeya ilaahay rasuulkiisa jecel mathalkooda waxa weeyaan fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxumaa. laa ilaha ila allah. mathalkooda jacaylka ay isjecel yihiin ay isu xiriirinayaan, hadiyadaha isu geynayaan, siday isugu naxariisanayaan, siday isugu turaayaan, lutfiga, naxariista, qalbi jileeca, garabka oo la raariciyo, laysaga warqabo oo maaragtay laysugu duceynaayo. waa hal jasad ah. bilyanka iyo intaasoo milyan ee yani inta milyaarka muslimiinta adduunka jooga waxaa la rabaa hal jasada inay noqdaan. sidii boqolaalkii kun ee rasuulka la noolaa salawaatu llahi wasalaamu calayhi ee hal jasada u ahaayeen. hal jasad ah, siday isugu naxariisanayaan, isugu turayaan, waa hal jasad, hal jir oo kale weeyaan. haddii jasadkan xubin kamid ah 360 xubnood ee jirku ka kooban yahay, xubin kamid ah haddii uu xanuunsado, xubnaha kale oo dhan ma seexanayaan? ma seexan karaan. maxaa wacay? walaalkood xubinkii kala xanuunsan. dhegtii baa xanuunsan, jirka intiisa kale seexan maayo.
gacan baa xanuunsan inta kale seexan mayso, il baa xanuunsan inta kale, ciddidaa hadday xanuunsan tahay jirka intiisa kale ma, wuu qandhanayaa wuuna soo jeedaa, wuu dhafrayaa, wuu la taahayaa, ayuu leeyahay, wuu la ooynayaa. sidaas oo kale na lagu misaalay annaga ya inaan noqonaa loo baahan yahay. mu'miniinta dhabtaa waa kan, reerka aan ka sheekaynayo waa kan. almu'minu wuxuu leeyahay xabiibka salawaatu llahi wasalaamu calayh, haddana isagoo reerkan ka sheekaynaya, ya ilaahow reerkan naga mid dhig, reerkan ilaahow nagu noolee, ilaahow reerkan nagu dil, reerkan dhexdiisana ilaahow nagu soo saaro maalinka qiyaama. reerkan almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacdaa. mu'minka kale wuxuu u yahay dhis kaabaya, xoojinaya, yashuddu bacduhu bacdaa. dhagxaantan dhagaxba dhagax kaleu xoojinayaa, dhisba dhista kale xoojinaysaa, soo maha? sidaasoo kale loo baahan yahay. walaalku waa in walaalka kale uu u noqdaa xoog, u noqdaa udubdhexaad, tiir waa inuu u noqdaa, waa inuu xoojiyaa. saddex walaala hadday meel joogaan waxaa la rabaa inay ka awood badan yihiin intaasoo maaragtay keyrkood ah. taasaa loo baahan yahay. sifada waa taa wanaagsan ee laynagu tilmaamay. madrasada maanta waxaan ugu talagalay orientation. orientation inaynu yani waa ogsoon tihiin marka Oroba la aadayo, sponsorinta lasoo dira, inta la baaso IOM-ya wax marka la maro, intaan wadanka reer galbeedka la aadin maxaa dadka loo furaa? orientation. wacyigelina loo sameeya 3 beri, qofkaanan tegin waa la reebayaa. subax walba gabar ka leesoo waraaqo wadataad arkay ordays, wiil orday, waa salaada subax marka la tukanayo, laga yaabo salaada xataa inuusan tukan. intee orientation aan socdaa, America la qaadayaa wacyigelin. maxaa la barayaa? waxaa la barayaa meeshay u socdaan, dhaqankeeda iyo sidii loogu noolaan lahaa iyo sidii wartaa waa adduun. laakiin madrasatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaad arkaysaan wiilashii dhalinyarada ahaa ee wadada liibaanta waxa ay sameynayeen orientation. culimada ay idin keeneen waa ka madaxii allah barakeeye Sheekh Maxamuud, muasasatu al-ihsan, waqtigiisii maanta halkaan uu fadhiyaa, kalimaadkii u dhahay waad maqlayseen. orientation guryaha maxaa lidinkaga keenay? waa wacyigelin. orientation waxaa lidin sheegaya waa maxay? ay madrasadu idin sheegayso waa sidaad ugu noolaan lahaydeen adduunka, sidaad ahaan lahaydeen, sida la rabo inaad isugu naxariisataan, sidaa la rabo inaad isugu wax qabataan, aada u midowdaan, aada u waajahdaan mushkilaadkiina, ya sida la rabo inaad xoog u yeelataan. wacyigelin dhan walba ah. wuxuu kaloo leeyahay xabiibkeena salawaatu llahi wasalaamuhu calayhi, war reer yahow, reerkan walaalaha ahaw oo iimaanka ku walaaloobo. laa, xadiisku waa saxiixaynka, weliba lafdiga muslim baa leh, laa tabaagadu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa taqaatacuu wakunuu cibaad allahi ikhwaana. laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa 3. haysu caroonina gabadhu, yaani gabadha kale u caroonin. maxaa wacay? laa tagdab walaka aljanna, xabiibkaa ku dhahaya qaar kamid a saxaabada sala allahu alayhi wasalam. haysu caroonina. carada xaggee ka imaadaa? waa ibliis. maxaa la rabaa markuu kugu taabto? acuudu billahi min ashaytaan arajiim. haddaad taagan tahay fariiso, haddaad fariisatid, haddaad fadhiday seexo, kac, weysayso, qabayso. maxaa wacay? waa dhimbil dab ah ayuu uurkaaga geliyey. Soomaalidan arag buu yidhi rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayhi, qofka markuu xanaaqo indhihiisu say noqonayaan guduud, dhimbil buu ku shidayaa, baanzin buu ku daarayaa ibliiska. war ibliiska u naxariisan maayo, ku naxariisan maayo. marka waxaa dabka maxaa lagu damiyaa? biyaha lagu damiyaa. markiiba waa la weysaystaa, madaxaa la qoystaa, acuudu billahi min ashaytaan arajiim. walaasha markaasaa la cafiyaa, markaasaa ilaahay loo baryaa, qalbigaaga markaasuu waasac noqonaya. soo ma ogid marka qalbigaagu waasac noqdo xataa cimrigaagaa dheeraanaya, irsaaqdada ilaahay barakaynaya. soo ma ogid dadka qalbiyadooda ciriiriga ah ibliisku uu dhistay, cushka ku samaystay, qalbi madoobaad, cimri gaabad, ciriiri ayay ku jiraan iyo caayirnimo, dhaqsana way dhimanayaan. soo ma ogid nolosha ilaahay ku ciriirinaya.
maalin walba way xanaaqsan tahay sheekhow saasaa la yeelay reerkaygiibaa igooyey kana igooyey kana igooyey kana i cararay kana i caayay kana si xun u eegay kana i fogey ciriirigaas fiiri ilahay baa idinku dhaariyay caafi haysu caroonina la yidhi haysu caroonina caradu waa ka mamnuuc reerkan cara ma imanayso ma soo dhexgelayso ma yaqaanaan wax cara la yihahdo hana isxasdina ayaa la yihi marka cara marku timaado kadib ayaa xasad ku imanaya ani saa tiri soo maaha way noo tahay inay ka goysay rabtaa xarashay uqaadaysaa xarashay uhaysaa arsiyay rabtaa walaa tadaabaruu marka laisxasda maxaa imanaya ma laysu soo dhawaanaya maya haysu dubur jeedinina qof walba ka kale yuusan ka tegin markaa kadib marka laisu dhabar jeediye maxaa imanaya de waa laisgooyey xiriir ma jiro walaa taqaatacuu ha isgoynina intuba waa amar xabiib ku sali xabiibkaaga salawaatu llahi wasalaamu caleyh waa inta ummadeena haysata afartaa layna leeyahay iska ilaaliya cidda loo sheegayo waa kuwe kunuu cibaad allahi ikhwaana waa addoommada alle rasuulka lama hadlaya addoommada ibliiska addoommada alle waa kuwa laleeyahay ha isu caroonina ha isxasdina ha isu dhabar jeedinina ha isgoynina laakiin intaaba samaynaysa waa addoomo ibliis haddaad aragtaan gabadha kale u caraysan ama xasdaysa ama goysay ama u dhabar jeedisay oo aanan salaamaynin waxaad ogaataan ficilkaas ibliis bay ku caabudaysaa ee ugu dhawaanaysaa ilaahayna way kaga fogaanaysaa ilaahay naga fogeeyo ilaahay dabeecadda hay naga fogeeyo wa kunuu san ahaanaa marka haddaynan isgoyneyn isu carooneyn isxasdeyn ismaaragtaay dhabar jeedinayn seen u dhaqanaa diinteena waa hayeelin iyo yeel hayeelin hadii lagu dhihi lahaa waaba caajisi lahayd maxaan samaynaa waa lagu sheegayaa wa kunuu cibaad allahi ikhwaana addoomo alle oo walaala ah noqda maartan addoommada alle waa kuwaa sifadooda laakiin ha noqonina meesha waxaa ku jira addoomo ibliis oo cadaawad isu ah oo isu caroonaya isgoynaya isxasdaya isdhabar jeedinaya ha noqonina walaa yaxilu limuslimi an yahjura akhaahu fawqa halaath laa ilaha ila allah ummadeena fiiriya xalaal uma aha umana banaana walaal familiga kamid ah inuu walaalkii kale ama walaasha inay walaasheed kale ay ka tagto oo ay ka haajirto in ka badan 3 cisho haddii ibliisku waxyar idinku taabto maalinka uu idinku taabto aad careysan tahay maalinka aad ka fikiraysid waa sidee maxaa i helay iyo maalinka dambe aad usoo laabanaysid intaad ilaahay ka cabsatid ya 3 cishaa lagu ogol yahay maalinka afraad haddaad gaadhid malcuunad ayaa tahay walaasha haddaad maalin afraad ku gaadhid adigoo uur xun wallahi malcuunad baa tahay sidaa haddaad ku dhimatidna addoon ibliis baa tahay la soco war walaalkan lama ogolo baruurta uraysa lama ogolo in lagu daayo markiiba in laga bixiyaa la doonayaa fa aslixuu bayna akhawaykum weliba lafdi kale wuxuu ku darayaa weliba labada walaal 3 cisho oo ay weliba is arkayaan oo ay kulmayaan kan walaashu ay ka jeesanayso walaasheed kale walaashana ay walaasheed ka jeesanayso suuqa la isku arkaaya indhaha la isku huufaya indhaha la isku gubaaya sank ayaa la isu buurinaya garabkaa la isku qaadaya qaarkood waaba ismaba arka xagga markay arkay ka laaban hoose u dugay xaggaasay ka jeesanaysaa ficilka hadduu socdo 3 cisho in ka badan malcuunad weeyaan lama ogolo markiiba maxaa la rabaa gabdhaha kale arrinka og fa aslixuu bayna akhawaykum markiiba inaad ku degdegtaan oo aada islaaxisaan weliba waxaa la yihi labadaas ruux hadba kan mubaadaro sameeya oo u degdega walaalkii oo islaaxiya qalbigiisa hagaajiya oo walaal raalli iga ahow maxaa dhexdeena yaa la dhahaa qofkaasaa wuxuu ka khayr badan yahay qofka kale way kala fadli badan yihiin soomaha labada ruux kan salaanta ku hormaraa ka fadli badan kana khayr badan ilaahayna uga dhow kan kale
marka noqo adiga kan ilaahay u dhow kan khayrka badan noqo ummadan reerka halkan qabiil ilaahay wuu kala sarreysiiyey kan sarreeyo noqo kan sarreeyo waa kan qalbigiisa aan caragelinayno walaashii iyo walaalkii aan u caroonin waa kan aan xasdayna xasadka ka tirtiraayo oo xasadka ka fogeynaya laabtiisa waa kan aan u dhabar jeedinaynin waa kan aan gooynaynin waa kan haddana haddii ibliis dhexdooda wax uun dhigo markiiba salaanta bilaabaya wanaaga bilaabaya waasilka muxuu yihi xabiibka salawaatu llahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi waa kan waasil ma aha kan marka la xiriiriyo un wax xiriiriya hadiyada loo keeno geeya marka la salaamo wax salaama marka la dhunkada marka loo sheekeeyo u sheekeeya yani ma aha ka dabeecadda insaankaaba waxay keenaysaa gacmo maxaa la yidhi gacmo isdhaafay ayuu gacal ku jiraa laakiin waasilka dhabta ah ilaah iyo rasuulkiisu jecel yihiin waxa weeyaan ee ajirka badan la siinaya aakhiro liibaanayo waxa weeye kan marka la gooyo xiriiriya marka la gooyo oo habaryartii eedadii walaashii walaalkii xataa waalidki markay gooyaan nooga bax guriga la yiraahda markaas aanan caroonin oo xiriiriya marka wax loo diido wax siiya marka la caayo wax amaana cagsiga maxaa wacay meesha ibliis baa lala dagaalamaya ibliis baa meesha laga saaraya marka maxaa loo baahan yahay waasilka marka waa kaa haddii lagu gooyo xiriiri ilaahay aayad rasmiya noogu sheegay oo dhahaya idfac bilatii hiya axsan adiga haddii lagu xumeeyo xumi walaal kama soo baxdo mu'min wax ma xumeeyo qalbi mu'minna wallahi in aan xumaan iyo xasad iyo gooyn iyo inaanay kasoo bixinin maxaa waca mu'minka waa tayib ilaahay baa jecel wax wanaagsan unbaa kasoo baxa af iyo adin laakiin ibliis baa jiro marmar wax tuuraaya laakiin waxaa la rabaa mu'minka inuu markiiba ka shaqeeyo haddii walaalka uu ku xumeeyo ma xumaynaysaa maya sida wanaagsan adiga فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم نينك مركو كوغوي اد حريرينيس مركو كعايو اد امانيس مركو wax ku diida ad siinaysid ninka isaga ee aad sida u daba socotid wallahi walaalkan kuugu dhow oo ugu jacayl badan baad noqonaysaa marka sidaas loo baahan yahay in lagu noqdo walaalayaal Umar ibn al-Khattab ayaa wuxuu leeyahay dad waxaan ugu jeclahay axabu nnaasi ilaya man ahdaa ilaya cuyuubi walaalaha waxay isku leeyihiin waatan xaqa ay isku leeyihiin waatan waxay isku leeyihiin haddii walaalku yaro khaldamo oo walaalku xoogaho wax ku taabto ama isagoo yaro la arko in walaalka kale markii unsur akhaak dhaaliman aw madluuman inaad u sheegtay no sidaan ma aha walaalkaasaan maxaa u yeeshay walaashaas sidaan no see ula hadlaysa walaalka way soo moogin iimaankii aawe ya war ibliiska iska naar markiiba inaad wuxuu yiri waxaan ugu jeclahay adduunka qofka ceebtayda ii sheega ayaan ugu jeclahay Umar ilaahay ka baq qofka idhaa Umar ibn Abdul Aziz wuxuu leeyahay radiyallahu anhu wa ardaaka Umar ibn Khattab aha Umar ibn Abdul Aziz khaliifkii shanaad wuxuu leeyahay uu ku leeyahay la taliyihiisi ama khaadimkiisi muzaahim wuxuu ku leeyahay warniyahow garabkayga soo istaag mar walbo aan dad la hadlaayo garabkayga soo istaag afkayga iyo ficilkayga fiiri fiiri haddaad aragtid inaan wadada ka leexday sawaabkii iyo wanaagii aan ka leexday in yaroo dulmiya haddaad aragtid in aan ka leexday inaan u leexday haddaad aragtid oo aan khaldanahay faraqi ijiid weliba si tartiiba ma aha xoog ii jaf isii xusuusi aan argagaxa iga nixi ayuu leeyahay haddaad aragtid ya oo waxaad tirahdaa ittaqi illaaha yaa Cumar fa innaka satamuut waad dhimanaysaa qabri baa ku sugaaya qiyaama ku sugaaya miisaan baa ku sugaaya is-ilaali idheh taasaan ugu jeclahay ibn Sirin wuxuu leeyahay radiyallahu anhu wa ardaah wa taabiciintii dadkii ugu waaweynaa taabiciinta familigaanu ka hadlaaya familiga ilaahay kaliya kama hadlin yaa familigan walaalka ilaahay kaliya kama hadlin rasuulka kaliya kama hadlin saxaabada kaliya kama hadlin bal taabiciintii baa ka hadashay qof walba wanaagsan baa ka hadlaaya wuxuu leeyahay walaalka haddii wax uun kaa soo gaaraan u cudur daar war haddii lagaaga keeno ya heblaayo waxay ku lehed ma maqashay u cudur daar
هدغيسن marka hore laakiin dhagahaga hadii uu ibliis soo gaarsiiyo shayaatiinul insi illa way shaqeynayaan waxa social media oo dhan ba illa iyagu isticmaalaan hadii xumaan shar shay oo walaalka laga soo gaarsiiyo oo cudur daar hal ila 70 cudran toddobaatan cudur daar ko maxay waxa laga yaabaa inuu saas u yeelay oo cudur daar wanaaga xaqiisa u qaad hadii aad toddobaatan cudur daar inta u sameeysid aad waxba u weydid waxa tiraahdaa waxa laga yaabaa si aanan aqoonin inuu u yiri cudur daar aanan aqoonin ya anigu garan maayo laakiin in sabab uu dhaha laga yaabo oo cudur daar mid kalena wuxuu leeyahay hadii ha u malaynin walaalka warka ka soo gaaraya shar ha u malaynin Allahu akbar qalbiga idilaaciisa hadalka wallahi qalbigu idilaaci walaalka iimaanka walaalka halka qabiil aatihiin walaalka hadii ha u malaynin hadii xumaan ay ka soo gaadho waa xumaan cad oo la arkaya la arkaya oo cad sariix ah hadii ka soo gaadho ha u malaynin shar in ay tahay inta aad u heli kartid wanaag inaad u leexisid dhanka wanaaga intaad heli kartid ya ha u malaynin shar eeg sida qalbiyada loo ilaalinayo qalbiyada Allah inoo ilaaliyo waxaan ku soo khatimayaa xadiiskan uu warinayo Muslim imam Muslim oo uu leeyahay xabiibkeena sallallahu wasallam alayhi isagoo la hadlaya familiga oo dhan reerkan sharafka leh ee iimaanka Ilaahay ku sharfay ku walaaleeyay reerkan walaalaha ah la yiraahdo walaal Ilaahay u bixiyay isagoo la hadlaya ayaa wuxuu ina leeyahay xabiibkeena sallallahu wasallam alayhi ku saliye la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu janna gali maysan war hadafkiinu waa intee hadafka ugu dambeeyo waa intee janno wax kala jira aakhirada la tago fariiqun fil jannati wa fariiqun janna gali maysan illa aad familiga soo gashaan si dhab aad u soo gashaan wallahi reerka illa aad xubin ka noqotaan si dhab aad uga noqotaan reerkan muuminiinta walaalaha kana noqon maysan mu'min dhab ahna noqon maysan ila aad isjeclaataan marka jannadeeni waxa lagu xiray inaan isjeclaano gabadha kale jeclaato ay u cudur daarto xumaan aan looga keenin aanay u caroonin aanay u dhawr jeedinin aanay xasdin aanay goynin jannadeena ku xiran jannada qaaliga ah inta yara ku xiran inta lagu xiray waa dagaal inaad la gashid ibliis diyaar buu tiin ibliis inaad la dagaashaan inaad la jihaadaan inaad isjeclaataan reerka midaysaan qabiilkan aad ku faantaan aad baan idin kugu faanaa dhalinyarada waxa wallahi reerkaygi iyo ciyaalkaygi aan uga soo tagay waa jacayl aan idin qabo Allah idin jeclaado adduunyo aakhiro Allah idin jeclaado wax kalena idin kuma jecele adduunyo idin kuma jeclaanin aakhirana ku jeclaaday waxaan idin ku jeclaaday waa Ilaahay dartii maxaa wacay sheekh sidoo sheegayay toddobada la jannaynayo toddobada harka Ilaahay fariisanayo waxa kamid ah laba Ilaahay dartii isu jeclaatay waxaan maanta qirayaa in aan idin jeclahay raggiina iyo dumarkiina Ilaahay dartii in Ilaahay inaga yeelo kuwa harsada harka maalinka harka kale aanu jirin harka Ilaahay mooyee maalinka qadarkiisa waa taqaanaan 50,000 oo sano oo qoraxda halka la sukeenayo har aanu jirin geed aanu jirin dadkaas saaxiibada Ilaahay dartii ku saaxiibo ayaa halka la geenaya Ilaahay hayna walaaleeyo waxaan idin kula dardaarmayaa madrasadu idin kula dardaarmaysaa hatta wadada liibaanta muassasatul ihsaan dadkan khayrka isu kaalmaystay idaylkeen nafsadeena ugu horeeyo idinka kaliya maaha dardaarankeenu waa inaan isjeclaano jacaylkana jannadaas ya ayaa inooga xiran Ilaahay waxaan ka baryayaa inta aad maqlayseen Ilaahay inoogu anfaco خالصا لوجهه الله inooga yeelo kuwa u baxsada maalinka qiyaamada Allah inaga yeelo muraad baad leedihiin oo ogaah insaanku waa baahi badan yahay waa faqiir muraadkeena Allah sahlo kiina khaaska kiina caamka Allah sahlo
gabar walbo xanuunsan ilaahay ha caafiyo, ilaahay ha caafiyo xubnaheeda allah u caafiyo, qalbigeeda iyo ruuxdeeda allah u caafiyo, dhaahiran wa baatinan allah u caafiyo. inta naga maqan ama ina maqlayso ina eegayso ilaahay waxaan ka bari inuu ilaahay caafiyo. isbitaalada lagu jiraa in ilaahay ka soo saaro, bukaan socodi bukaan jiif ilaahay ha caafiyo. ilaahay waxaan ka bariyey fahamkii baa naga khaldan, fahamkii baa naga adag, albaabadu waa xiran yihiin, fahamka allah inoo furo, fahamkii aynu diinta fahmi lahayn allah inoo furo, xifdiga allah inoo fududeeyo, inaan xifdino qur-aanka diinta waxyeynka ku dhega la yiri goos dambeedka gashta kuwii qabsada allah inaga yeelo, ilaahay haynaga yeelo, ilaahay haynoo yeelo. ilaahay waxaan ka bariyay inta xiran allah soo daayo, in badan baa xabisada ku jirtay allah ka soo saaro, gaal iyo yani galbeed iyo dal iyo dibadba waa la xiran yahay allah ka soo daayo, dumar baa xiran allah ka soo daayo. in badan baa dadkeeni ubad laga qaatay waalidiinteeni allah u soo celiyo, in baa lagu soo socdaay ilaahay ha ka celiyo, ilaahay ha ka difaaco. dadka isugu jeclaa waa kala maqan yihiin, dadkii isqabay, dadkii isdhalay, dadkii wada dhashay, dadkii jaarka ahaa, dadkii dad isugu dhawaa waa kala tageen, adduunya ku kala tageen. ilaahay waxaan ka baryay in ilaahay isu keeno, iyagoo wada jooga adduunyadooda siiyo, u barakeeyo. in badan baa lunsanay allah soo celiyo, in badan baa gaalowday ilaahay ha u soo celiyo diintooda, rushdigoodii tubta toosana allah u soo celiyo. gabar gabdhaha kamida ayaa aad u xanuunsan baa layidhi ilaahay ha caafiyo, caafimaad degdeg ah ilaahay ha caafiyo, caafimaad aan cudur ka dambeynin allah ha caafiyo. qalbiyadeena hal allah ka yeelo, hal allah ka yeelo. berisamaadkii dalkeena allah ku soo celiyo. soomaaliga xataa waa la isku haystaa marmar, berisamaadkii dad baanan aqoonin oo aanan fahmaynin oo u malaynaya yani dulmigii waagii ilaahay ha soo celiya inaan leeyahay. berisamaad waad garanaysaan soo maaha, waa wakti wanaagsan oo ina soo maray. intiina badan waad yaryartihiine aad baan idinkaga weynahay, laga yaabay inaydan weligiin arkin berisamaad wax la yihahda. berisamaad waa dugsi aan dhigan jirnay, waxaana soo martay dugsi aan dhigan jirnay qur-aan. maalinka aan ugu jeclahay ma aha maalmaha qur-aanka aan baranayo, waa maalinta khamiistee laisfasaxaya ee usha laisku garaacaya laysu dirayo. ma garaacan jeclaa may, laakiin duurkaan aadi jirno kasoo goyn jirnay. duurka waa nabad weeyaan, roob baa da-aya, waa meel qabow, geedihii oo dhan baa wada dhalay oo mirihii wada dhalay. duurkaasaa laga dhergaaya, raashin ma u baahanaysid. maanta ma la helayaa? waktigaas wanaagsanaana soo maray oo la ciyaari jiray, lisu qalbi wanaagsanaa. wallahi qabiil lama aqoonin, qabiilkii 90kii noogu horreysay kowgii markii lasoo qaxay. dadka baydhabo kusoo karay, baydhabo dhan reer baydhabo ahaan hal qabiilaan ahayn, aad baan isu jeclayn. dadka laba unbuu ahaa, maay iyo maxaatiri in baa la dhahay. taasna waxaa keena waa luqadda, kuwaana maay ay leeyihin, kuwaana maxaatiriya la leeyahay. intaas waa lisku jeclaan jiray, laisku xiriirin jiray. soo maydin garan. berisamaadkaasaa la yihahdaa. markaan rabo inaan xamar aadno, wallahi 8 saac habeenimo, 7 saac habeenimo, yaa saq dhexe ayaa basaska intaan iska lugeeyo, baska intaan tagaa ilaa ay xamar wax ku istaajinaya isbaare ma jiri jirin. soo waqti wanaagsan maaha. berisamaadka aan u jeedo waa taa hala fidiyo, sababtoo ah dad baa waxay igu haystaan axyaanan berisamaadkii sheekhama wuxuu ku wadaa wax xun bay u tiirinayaan. berisamaadka waa ka ilaahay waxaan ka baryay, war miyaynan u baahnayn waqtigaas oo kale? ya qaar ba waxay ku leeyihin waqtiga wadaadadii la xirxira, diyaaraduhu gadoomayeen, la iscayrisanayey, waagaas miyuu sheekhu nagu celin rabaa? see ilaahay berisamaadkeeni ha noo soo celiyo wanaagsanaa, ilaahay berisamaadka inoo soo celiyo. dhulkeenina amnigiisa amaankiisa ilaahay waxaan ka baryay inuu soo celiyo. adduunku waa 2 beri waa laga tegayaa, ilaahay nagama tagsiyo ilaa isagoo raalli naga ah maahane. haddaynu ka tagna rasuulkum ciise jannat alfirdows allah isugu kaageeyo. astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.